aniga qaatoon waxay ugu dambeysay 2012 baan isaga soo xiroodo halka ka yimid iyadoo daal badan dhibaato badan aanu soo marnay ilaa isansi waxay dad formality haddana waa sidii waa kuwa maalin meel Kenya idoog yaa ku soo raray haddaba inteenna haddaan wada hadallo hablow maxaad u timaadeen bariwaad iyo saabtun baa u timaadeen mise wax dhabaad u timaadeeno danu aad waxa dhabtii waa maxay haddaba isweydiin waxa dhabtii waxa weeye jiilka dhalan doona waxay dhali doonaan kan ma hadir jira ee dhulbaanta lagu sheegay dhulbaanta uu dhamaaday wuu soo dhalanaya marna uu dhalanaya dhiig buu ku xoroobayaa sol dhiig geesi u dhintay la gowraay buu ku xoroobay kuma xoroobayo riwaayadi iyo beel sidaan gabdhahu ragga u kuwa yalla halkan ciidi kala jeegto dhulbaha garow yar oo silica oo aan ku qaadan aantayn $7 baan ku joognaa dad jalas kama taqaanin waxaasidinta inta waxaasideen ku joognaa garow oo ma jeerteen ka qaadanaa aantayn silica aanu kaga qaadano ku qabno dib iyo go'ad waa kuwan ku la seeri waa kan kamid baa sarkaal buu sheeganay ma yihiin dad xora oo meel sharaf ku leh hadii la yiraahdo waxba idin joogo waa been dhulbaanta uma gudboosanay inuu dhiig qubno inaan dibadna ma gudboosan haddaad doonaysaan inaynu xoreyno dhulkeennii waa inaan ku talagalnaa inaan dhimano sidii baraxan u dhintayna u dhimo gosi ilaahay ma idinku ogyahay wabillahi tawfiiq